ciriiriga wadooyinka waa arrin saameyn ku leh dunida gaar ahaan wadamada dhaqaalahaan soo koreeya ay Soomaaliya ku jirto. Wuxuu saameyn dhibaato leh ku leeyahay wax soo saarka ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Magaalooyinka Mareykanka waxaa celcelisaan uga baxda 154 saacadood jaamka wadooyinka sanadkii, wuxuuna wadanka dhaqaale ahaan lumiyaa sanadkii 89 bilyan oo dollar. Si la mid ah UK waxaa sanadkii uga lunta jaamka ciriiriga wadooyinka 6.9 bilyan oo dollar. qofka isticmaala wadooyinka London 115 saacadood ayuu jaamka wadooyinka ku lumiyaa, dhaqaale ahaanna waxaa uga lunta 894 pound. In baarkin badan la sameeyo si loo dhigto baabuurta dhinacyada, meeshana uga baxdo ciriiriga wadooyinka ama uga yaraato. In kor loo qaado adeegyada online-ka kaasoo ka qayb qaadan kara in dad badan oo suuqa soo aadi lahaa loogu geeyo xarumahooda ama guryahooda adeegyada ay doonayaan. Markaan aan u imaano Soomaaliya, bajaajlaha Muqdisho wuxuu ugu yaraan maalintii ku lumiyaa jaamka magaalada 30 daqiiqo. meel uu macnaha $3 barqaadni ilaa muddo laba saac bar amal jaamkaas ka dhex jiraan rafaadkaas amalna macnaha $3 ama $3 ama $5 ma waxa leeyahay. Dhaqaale ahaanna waxa ugu yaraan uga lunta $5 maalintii, taasoo noqonaysa inuu qofka bajaajlaha ah ku lumiyo sanadkii $1800. sabtama inuu macnaha oo dhamaanta jaamka galanayo lacagtan way yartahay asaga waqtigii uu ka rabaa marka adiga laga rabo inaad dadaasho marka aniga waxaan ugu qasbaysaa inaan macnaha qofkii aan iska basareyno oo aan lacagta half tour aan kala wareegno qof kalena oo macnaha oo si qaato sidaas horta ku shaqeynaa inta badan caqabadaha oo bajaaj. Adiga daawade maxaad ku dar lahayd oo xal ah si loo yareeyo jaamka magaalada?